السلام عليكم. kusoo dhawaada janaalkayga Ayub Koosar. Maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago barnaamij ku saabsan Facebooka. Ognahay aaladda Facebooka inay isticmaalaan boqolaal milyan oo qofood. Haddaba waxaan rabaa maanta inaan idinka tusiyo sidee loo qariyaa sawir aad horay u soo dhigtay. Tusaale ahaan, Facebook waxaad soo gelaysay sawirkaas wuxuu yahay public. waxaan rabaa inaan qariyo oo aniga bis inaan arka ayaa u baahanahay. ileen aniga ayaa maamulo userka aan kasoo upload gareehayo sawirka. bal aan aragno fiidiyoga aad iyo aad ayuu muhiim u yahay. fadlan dhammayso adigoo mahadsan. waxaan tegaynaa meeshan, waxaan soo kacsanaynaa Facebooka. markii aan soo kacsano waxaan tegaynaa meeshan saddexda calaamadood, kadibna waxaan kacsanaynaa profilkeena. markii aan kacsano waxaan tegaynaa qaybta sawirada. waa kuwan qaybta sawirada waa tan, waayo waxaan ognahay Facebooka inuu maalinta ka dambeyso inuu update sii noqonayo. kadibna waxaan tegaynaa photo. markii aan tagno halkan waxaan tegaynaa upload. waxaan raadihaynaa sawiradan mid ka mid a. waxaan ku dhufanaynaa sawirkan. markii aan ku dhufano waxaan tegaynaa saddexdan calaamadood ee ah. kadibna markaan tagno waxaan kasii tegaynaa edit post privacy. markii aan ku dhufano sawirkan hadda wuxuu yahay qof walba oo Facebook uu daaran yahay uu arki karaa, maxaa yeelay waa public. laakiin aniga waxaan rabaa inaan ka dhigdo aniga bis inaan arka ayaa u baahanahay. haddaa rabto waa ka dhigi kartaa friendis oo accept oo qaar laga reebay, aba specific friendis waa ka dhigi kartaa. laakiin waxaan rabaa inaan aniga bis arka ayaan u baahanahay. waxaan leeyahay only me, kadibna back ayaan leeyahay. hadda sawirkan waa aniga bis ayaan arkay, waayo maxay tahay waxaan ka dhigay only me. only me macnaheedu waxay tahay aniga bis inaan arka ayaa u baahanahay. ma u baahnayn in arkaan dadka igu jiro Facebook ee publica ka ah ee friendska ka ah. marka casharka aad iyo aad ayuu muhiim u yahay. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.